khamrigan oo ay soo qabteen ciidanka booliska degmada Salaxley ayaa tiradiisu waxa ay dhameyd 132 litir oo khamriya. Maxamed Cabdi Xuseen taliyaha saldhigga ciidanka booliska ee degmada Salaxley ee gobolka Maroodijeex ayaa faahfaahiyay howlgalka ay khamrigaasi ku soo qabteen. ilaa 12 ayaanu qabanay khamridii oo meel lagu xaseeyay dabeeto way naga yaaceen nimankii anagoon arag bay naga yaaceen naga il horeeyeen khamridii baan meesha ugu tagnay waanu soo qabanay gaarigaanu ku soo raray saldhigii baan geynay degmada Salaxley ayaanu geynay iyo degmada mas'uulinteedii baa nala jooga markaa waa 132 litir wey 132 litir wey taasoo aan ku daba joognay baryahanba dadweynaha waxaan ku codsanaynaa inay noo soo sheegaan dadweynaha oo inala shaqeeyaan ayaan ku codsanaynaa waxa caruurteennii iyo dhalinyaradeenii baabiyey inay noo soo sheegaan oo inala shaqeeyaan baan ku codsanaynaa degmaduna si fiican bay noola shaqeysaa sidaa iyo si ka sii badan ayaanu doonaynaa in loola shaqeeyo oo ubadkeena lagu baabiin geesta kale maayarka degmada Salaxley Axmed Buraale Iimaan iyo xogayaha degmada Salaxley Muxyidiin Cabdilaahi Axmed iyo sidoo kale xubno kamid ah golaha deegaanka iyo dhalinyarada degmada Salaxley ayaa ciidanka booliska ee degmada Salaxley uga mahad celiyay howlgalka ay khamrigaasi ku soo qabteen. waxay adeegsadaan runtii xeelado fara badan oo dibaalka ay ku qarinayaan ama ha noqoto waxyaabo lagu soo rido ama maartay qaab kasto adigu ay u qarin karaan bay adeegsadaan marka booliisku ku daba jiraa waana insha Allah taala ugu mahad celinayna booliiska howlgalka ay sameeyeen waana xoojin doonaa insha Allah faalkan mushkiladu in runtii ku haya daayirtii runtii dhalinyartii waana runtii hadan la iska qaban ragaadinaysa dhalinyarta soo kacaysa taliyaha saldhigga booliiska iyo ciidankiisa aad iyo aad baan maanta ugu mahadnaqaynaa runtii waxay guteen waajibaad qaran oo ay xaq u lahaayeen halkan waxa ka muuqda tiro badan oo khamri ah oo loogu talagalay in lagu baabiyo ubadkeena runtii khamrigu halka uu diin ahaan iyo dhaqan ahaan inaga taagan yahay dhamaanteen waynu ka wada dhareegsanahay waana aafo qaran ka degma ahaan shacabkeenu inaynu iskarab taagno ciidanka nabadgelyada ayaa waajib inagu ah marka bulshada waxaan leeyahay askarta la shaqeeyo oo intaan askariba ku iman ninka khamriga sita iyo helin meel ku gabado guri u dhigto gaari uu ku qaado qof hawl fudeeyo waxa laga yaabaa askarta deeriyeeto inay kala qaar qabanba waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda dhaxayn ciidanka loo soo kordhiyo degmada Salaxley maadaama ay tahay degmada ugu xuduudda dheer degmada Salaxley waa aadna waxay u mahadsan howlgalkan ay qabteen maanta ku guuleysteen iyo maalmo horeba wixii dambana waxaan uga digayaa dadka ka ganacsanaya in isha lagu hayo maalinba halku ka wareego baabuurta qaadaysa ciidamadu ishay ku hayaan waan la socdaan waan qaban doonaa insha Allah taala Mawlid Maxamed Saciid warbaahinta qaranka degmada Salaxley.